moogtahay inay kuwan yihiin 3 shay oo ku cadaynaya in Japan ay ku nooshay adduun kale. kow, ugu horreyntii gudaha dalka Japan waxaa jira mishiin khaas ah oo loogu talagalay in lagu meydho kabaha sportska si dhawyar. kaliya geli kabaha gudaha mishiinka, kadibna bixi lacagta, kadibna taabo badhanka laga shida mishiinka ayaana si iskii u meydhi doona kabahaaga uskaga badnaa. sidoo kale waxay leeyihiin qalajinaysa kabahaaga muddo yaroo koobanna waxaad ku heli doontaa kaba nadiif ah misana qurux badan daawade. 2, markaad iibsanaysa keega dhalashada dalka Japan waxay si free kugu siin doonaan shamaca iyo sidoo kale midida lagu jariyo keega. kaliya intaas maaha daawade, haddii aad sii furto gadaasha dambe ee midida waxaa ku jira kabriid amba bilike waxaadna ku shidi doontaa halkeera dambe loogu talagalay. waana hal abuur la yaab leh wuxuuna khaas u yahay dalka Japan. 3, ugu dambeyntii dadka Jabaaniiskayhi waxay aad u ilaaliyaan nadaafadda. halkii aad gacantaada kaga saaran lahayd bogoska xanjada marka uu qof ku siiyo amba aad qof siiso, qaar ka mid ah shirkaduhu waxay sameeyeen hab la yaab leh kaasoo isagu soo saaraya xanjada adigoon kuwa kala taaban. qofkiina si fudud ayuu u qaadan doonaa. soo la yaab maaha daawade. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo 3 shay aan soo sheegay midkii ayaa xoogaaga yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube-ka iyo Facebook-ka profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.